assalaamu calaykum. heesaha qaar waxay la xiriiraan farxad, ciyaar iyo munaasabado gaar. kuwa kalena waxay diraan fariin xambaarsan murugo, kala tag iyo uur ku taallo. laakiin heesta aan maanta ka hadli rabno aad bay uga duwan tahay. waa sidii malaa'igta geerida. waxay galaafatay nolosha 10 qof oo uu ka mid yahay ninka heestan sameeyey laftiisa. sodomeeyadii qarnigii la soo dhaafay, yacni qarnigii 20aad, Rigo Seris, hal abuure iyo la xameeye ka soo jeeda dalka Hungary, ayaa sameeyey hees uu ku tilmaamayay baaxadda murugada iyo darxumada uu dagaalku nafaha kaga tegay, laakiin ma xaqiijin guul weyn sidii dhacday ilaa uu saaxiibkiisa Lazajafor uu keenay fikrad dib u habeen taasoo si weyn u beddeshay ereyada heesta. wuxuuna kaga hadlay nin dhalinyaro ah oo isku dilay dhimashada gaclisadiisii darteed, wuxuuna ugu magac daray heesta axadda mugdiga ah. wuxuuna saaray Javor erayo uu ku cabirayay murugada iyo xanuunka uu la noolaa kadib markii ay dhimatay gaclisadiisa. sanadii 1935 waxaa ku heesay erayadan fanaan ka soo jeeda dalka Hungary, Bali Kalmar. in badan ayaa noloshooda ku soo gabagabeeyey markii ay dhegaysteen heestan, waxaana isdilay sanadii 1936 kaba sameeye lagu magacaabo Joseph Kaler oo la sheegay inuu ahaa dhibanihii ugu horeeyey ee heestan. booliiskana waxay heleen fariintiisii macsalaamada, wuxuuna ku qoray ereyada heestan. wixii markaas ka dambeeyey waxaa la helay xaalado badan iyo heestan oo isku xiran, sida dad badan oo isku dilay webiga Danuub ee mara Yurub, waxaana la socotay dadkan fariimo iyo warqado ay gacanta ku hayeen. dhammaan warqadahaas waxaa ku qornaa qoraallo iyo ereyo ka mid ah heesta geerida. sidoo kale ku darso kuwii istoogtay iyagoo dhegaysanaya heestan. sanadii 1936 Sam Lewis, heesaa Mareykan ah, ayaa tarjumay heestan. Mareykanna waxaa soo gaaray aafada isdilka ee heestan la socota, gaar ahaan kadib markii ay sidoo kale ku heestay fanaanada jaaska ee Billie Holiday sanadii 1941, waxayna gaartay ku dhowaad 100 qof. dadkii soo afjaray noloshooda kadib markii ay dhegaysteen heestan. idaacadaha iyo telefishinada ayaa hawada ka saaray heestan, gaar ahaan BBC ayaa laga mamnuucay gebi ahaanba, iyadoo la fasaxay laxankeeda in la sii daayo oo keliya. waxayna mamnuuc ahayd heestan 60 sano ilaa xayiraadii laga qaaday sanadii 2002. inkastoo su'aalo laga weydiinayo ilo badan oo ku saabsan xiriirka heestan iyo dadka noloshooda soo afjaray, taasoo galaafatay nolosha muwaadiniin ka soo jeeda Hungary iyo Mareykanka muddadaas. si kastaba ha ahaatee, heestan ninkii alifayna wuxuu la masiir noqday dadkii isdilay kadib markii ay dhegaysteen heestan, isagoo iska soo tuuray dhismo aad u sareeya. sanadii 1968 waxaa ziyaaday dhimashada la xiriirta heestan, waxayna u qalantaa magaca heesta ugu halista badan taariikhda. sheekada heestan sideed u aragtaa oo hore ma u maqashay? intaan ayuu ku egyahay muuqaalka. kani waa janalka Iftiinka Waayaha. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.